madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la hadlayay baarlamaanka Turkiga ayaa difaacay Falastiin wuxuuna sheegay in ururka Xamaas yahay dhaqdhaqaaq xornimo doon ah isagoo diiday in Xamaas lagu tilmaamo argagixiso. Madaxweyne Erdogan ayaa intuu baarlamaanka la hadlayay shaaciyay inuu ka laabtay booqasho loo qorsheeyay inuu ku tago Tel Aviv markuu ka ficil qaatay xadgudubyada Israa'iil ka samaysay Gaza. madaxweyne Erdogan oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri sidan: وحماس ليست تنظيما إرهاميا بل يقومون بالكفاح من أجل الدفاع عن شعبهم وأرضهم. هم مجموعة من المجاهدين ومنظمة تحررية. Xamaas ma aha urur argagixiso laakiinse waa dhaqdhaqaaq xornimo u dirir ah oo ay ku jiraan mujaahidiin u halgamaya difaaca dadkooda iyo dhulkooda. waanu ka soo horjeednaa in Xamaas loogu yeero urur argagixiso. Israa'iil waxay si xun u isticmaashay niyadayada wanaagsan annagoo ka ficil qaadanayna xadgudubyada Israa'iil ay ka samaysay Gaza. waxaan joojiyay booqasho ii qorshaysnayd oo aan Tel Aviv ku tagi lahaa oo aan rabay inaan Israa'iil kala soo hadlo in dagaalka la joojiyo iyo xaqa Falastiin u leedahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u hesho dawlad madax bannaan oo xuduudeedu tahay tii 67 caasimadeeduna tahay Qudus, taasoo ah xalka kama dambaysta ee keenaya inaysan mar dambe dagaalamin Israa'iil iyo Falastiin. dawlado badan ayaa iga codsaday inaan Tel Aviv tago oo aan xalliyo xiisadda gobolka. mas'uuliyiinta Israa'iilna way ila soo hadleen waxayna ii sheegeen inay soo dhaweynayaan inuu xiisadda gobolka wax ka galo. soo jeedimahaas badan waan aqbalay, laakiinse dhowr shuruudood ayaan ku xiray inaan tago Tel Aviv iyo inaan wax ka galo daminta xiisadda gobolka. laakiin nasiib darro Israa'iil way ka soo bixi weyday shuruudihii aan hordhigay ee aan isla qaadanay. marka laga qiyaas qaato waxay Israa'iil maalmahan dambe ka samaysay Gaza sida laynta rayidka, duqaynta cisbitaalada iyo arrimo kale. sidaas darteed waxaan ka laabtay qorshihii aan ku tagi lahaa Tel Aviv. ma tegi karo halkaas, mana salaami karo, lamana fadhiisan karo madaxda Israa'iil oo uu gacmahooda ku yaallo dhiiggii rayidka Falastiiniyiinta ee aan waxba galabsan. dambiilayaasha ku lug leh xasuuqa Gaza ka socda galbeedka ugu hiilinaya ficiladaas xun waa kuwa taageeraya Israa'iil oo aan xuduud lahayn. Israa'iil waa inay nabad ka raadiso hareeraha dalalka gobolka ku yaalla, waayo waxay u baahan tahay cid ay la macaamisho. waana sidii Turkigu ahaa 500 oo sano ka hor. Israa'iil mar aan fogeyn waxay u iman doontaa dalalka gobolka iyadoo khasban oo baryootamaysa isla markaana baadi goobaysa nabad. markay reer galbeedku dhabarka u jeediyaan waa hubaal way dhici doontaa sidaynu in badan taariikhda ka barannay. xalku waa xabad joojin degdeg ah iyo in la furo wadooyinka gargaarka bini'aadanimo ee Gaza. Turkiga ayaa diyaarado sida gargaar u diray Gaza. ilaa iyo haddana waxa Gaza gaaray sahay gargaar oo ay sideen 15 diyaaradood oo ku gooshay calanka Turkiga. waxaana weli dhiman ku dhowaad 40 diyaaradood oo gargaara. qaarkood maanta ayay hawada galeen, inta kalena usbuuca dambe. Israa'iil wax carqalad ah kuma samayn gargaarka Turkiga ee Gaza, laakiinse Israa'iil waxaan uga digaynaa inay dood ka keento xaddiga gargaarka aan Gaza gaarsiinayno. ma jirto cid naga hor istaagi karta gargaarka bini'aadanimo ee Gaza siday dhigayaan shuruucda caalamiga. waxaan mar kale xoojinayaa in mar walba la furo isgoyska Rafax ee gargaarka bini'aadanimo oo aan la carqaladayn imaanshaha gargaarka Gaza. dawladda Masar waxa saaran mas'uuliyad. wax kaleba ha joogeene waa in aanay cidna ka aqbalin in wax tashwiish ah lagu furo in Falastiin gargaar la gaarsiiyo. weerarada Israa'iil ee Gaza waxay muujinayaan dembiyo iyo khalkhal maskaxeed iyo ceebayn damiirka dadka iyo dawladaha dunida. marka la eego ficilada Israa'iil waxay u dhaqmaysaa sidii jabhad, uma dhaqmayso sidii dawlad. taasina ceeb ayay ku tahay, waana in cid kasta ay ka hor timaado dhaqankaas. Turkigu wax dayna kuma laha Israa'iil,
wax dan gaarana kama laha balse ficiladoodu waxay muujinayaan inay jabhad yihiin ee aysan ahayn dawlad waxa Israa'iil ay samaynayso maaha isdifaac waa waxashnimo ka dhan ah bini'aadmiga waxaan ka digayaa in howlgal kasta oo Israa'iil ay ka samayso Gaza uu dagaalka u bedeli doono xasuuq iyo dagaal daba dheeraada oo lagu hoobto waxaan cadaynaynaa in Israa'iil aysan ku gaari karin hadafkeeda rabshado iyo laynta rayidka waxaan ugu baaqayaa ururka iskaashiga islaamka ugu yaraan waqtigan inuu noqdo mid wax ku ool ah oo ku habboon hadafkiisa asaasiga ee difaacidda qadiyadda Falastiin iyo xurmada Qudus 28 bishan Oktoobar xisbiga talada Turkiga haya ee cadaaladda iyo horumarku wuxuu qabanqaabiyay abaabul ballaaran oo Istanbul ka dhacaya kaasoo loogu talagalay Falastiin waxaan ku celinayaa mar kale Xamaas ma aha urur argagixiso ee waxay halgan ugu jiraan sidii ay dadkooda iyo dhulkooda u difaaci lahaayeen waa koox mujaahidiina iyo urur xornimo doon ah Israa'iil way ku khasban tahay inay Xamaas sidaas u aqoonsato si nabad loo helo aan ku dilo haddii aad isdifaacdana waxa tahay argagixiso cid ka yeelaysa ma jirto Israa'iil iyo wadamada kale ee sidaas u fakaraya